waxa isku difaacda madaxweynuhu waa inuu isku difaaca sidii akhyaarta hadda iga horeysay yiraahdeen xildhibaanadaha waa inuu isku difaaca sharciga hortiis laakiin barakace maskiin oo la soo kiciyay ama qaaqlayaal Facebook inta la fariisiyay la yiri iidaha ama caburin oo maanta wixii aeroboorka aan ku arkaynay iyo mid hadda gudoomiyaha laga sheegay waxa soo dhamay waa wiil yar oo qaaqlahan maalin dhawaad waxa arkeen oo aeroboorka lagu wareejinayo nin wasiir soo dhaweey nin dhan oo hogaamiya oo xisbi dhan oo siyaasi iyo wasiir soo noqday xildhibaan soo noqday madaxweyne u tartamay ayaa maanta albaabka laga xirtay wiil qaaqlahan waa la soo dhaweynay waxa ilaahay hortiisa xaq biya waxa aan rabno shacab iyo xildhibaanaba inay isku baahistaan waxa weeye dalkan wada qaldan oo qardajeex uu qaaday wadadii saxda ahayd annagoo dhan bay mas'uuliyaduna saaranta inaan ku soo wada dugno xisbiga wadajir taageerayaashiisa iyo xubnihiisa iyo hoggaankiisana waxaan uga mahad celinaynaa maantooy adkeyd in la isku soo baxo oo wadooyinkii la xiray maantooy adkeyd maaragtay wixii shala dhacay wixii xala dhacay in maanta dad intaan leeyahay isku soo baxaan inay muujiyeen xayndaabkii inay ka soo gudbeen xorriyaduna halkaan ka bilaabanaysaa midaanaba xorriyadda iyo dimuqraadiyadda bilowgeeda waa maasantiin waxaan rabnaa jidadka in lagu socdo xisbiyadan oo dhan kullay shirar bay geli doonaan jidkaas inaan dareenkeena ku muujino annagoo wada jirna oo xorriyaddeena dimuqraadiyadii dalkan madaxweynaha cod baa lagu doortay qori kuma haysan karo cod baa lagu doortay barakaca kuma haysan karo cod baa lagu doortay ciyaal qaaqlayaal kuma haysan karo sharcigu ku haysan karaa sharciga la rabaa inuu isku difaaco waxaan rabnaa inaan jidadka ku muujino shucuurkeena iyo dareenkeena tagno daljirka daasoon oo maanta barakacayaal la geeyay inaan annagoo barakacayaal ahayn oo guryaheennii ka soo kacnay inaan halkaas tagno ayaa noo ballana waa maasanteen xildhibaanada federaalka baarlamaanka maanta wixii ka dambeeya waxay noo ballan qaadeen inay shacabkooda la hadlaan ay u sheegaan go'aan kasta ay qaateen ay la xiriiriyaan wax walba oo ay meesha keeneen shacabkooda loo garbigto madaxweynaha jamhuuriyadda asagana waxaan leenahay guryaha isku xiraysa iska daa shacabkaaga u imow waa kana halkaan ay maxaa la yidhaahdaa diidan yihiin inaad maxaa la yidhahdaa dal kale u cararto dal shisheeye inaad u cararto baa diidan yihiin haddana halkaan waxaan ku soo dhawaynaynaa maanta waxaan sugaynay ilaa iyo hadda kelmaddii hogaamiyaha laakiin waxaan rabaa kelmadda dhaqanka oo odayaashii geed fadhiga ahaa ee dalka iyo dowladnimada soo dhisay inaan ku hormaro kadibna uu soo dhaweeyo hogaamiyaha ayaan wada sugaynay soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta aniga dawladda soo dhashay mashiin waxa cabsiya ka jirtay waxaan rabaa anaga mooshin shacab wada anigu mooshin shacabku farmaajo mooshin ku wada hadda lacag ka qaadan doontiin hadda ninkaas ka daayay ninka dalka laga qabto dalku wuxuu qarka u saaray inuu xabad bilaawna u saarta shacabka wax walba dawladnimo waa weyni shacabku wax walba dawladnimo waa waayay wala la isku sawiro iyo dal caburiyo iyo dad kala laayay baa lagu duugo annaga ma ana arki jiray dawladda taageerada ka diinay iyo diyaarada wata ka diinay ma ka aqbalay inuu nimanka shisheeyo waardiyeeyaan inay dadka naga laayaan oo boorsooyinka mido baasaboorada islaamiyada ma aqbalayno wallahi xabadaan ku bilaabayna shacabka ku bilaabay mooshina ka wadna ma aqbalayno waxaan halkaan u imid waa inaan eraga jeediyo xildhibaanada waxaan ka rabnaa ninkaan ay nooga riixdaan رئيس الوزراء راعي دولة الإسلام كربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موشكي شعبك ما سيحدن. موشكي شعبك ما سيحدن. موشكي وحوي شعبك عايز يسيح. هل كان نوع كسر دوينة يا واحد جرا هجامية يا هذا مقدسي سجلنا يا لكن كذب بربارتك عشان أيام نوقت بيتونتا ننتظر أيام نوقت بيتونتا وحاربنا إن هجامية صور دوينه. Hogaamiyaha la soo dhaweeyo
ayaan marka hore kugu mahadcelinayaa saacadaha dheer ee tirada badan ee aad maanta qoraxda fadhiseen cadceedda iyadoo aad u kulushahay aad iyo aad aan runtii ku mahadcelinaya iyadoo cidina soo qasabtay ama cidina soo laaluushay aysan jirin waa rabitaankiina halkaan ku timaadeen aad iyo aad aan kaga mahadcelinaya waxaan kaloo u mahadcelinayaa xildhibaanada iyo xisbiyada kala duwan matalaya sharafta leh ee ayagana qoraxda nala joogay ee laboorka lagu xayiray ee lagu xanimay ee laga xirtay ee ilaa hadda nala socdaan aad iyo aad ugu mahadcelinaya xildhibaan waa maasantihiin kale maanta waxaan ku soo noqday muqdisho ayagoo madaxweynihi oo wadaysan yahay waxaan leeyahay madaxweynaha adigaa i soo weeraray oo amar ku bixiyey guriga inaad ku soo weerarto wiilashii askarta ah iga laayay kabaha ku aasay maxkamadaan isla tagnay sharcigaan ku kala baxnay waxaan rabaa madaxweyne fariinta koowaad dilaa waxay tahay adiga iyo xildhibaanada waa eedaysantahay sharciga ku kala baxa waa fariinta koowaad fariinta labaad waxaan rabaa inaan reer muqdisho u diro maanta waxaan rabnaa reer muqdisho haddaana inaan idhaahno waa markii ugu dambaysay soo ayagu ma dhihi jiro markii ugu horraysay maanta waxaan leenahay waa markii ugu dambaysay oo jidadkina la ka xirto waa markii ugu dambaysay oo cashuurteena la dhaco waa markii ugu dambaysay oo qoray oo taliyo waa markii ugu dambaysay oo dadka la caburiyo dad la caburi karo markii anaa yaqaano caburis hore u jiideen waka xoog badanaa ka diideen waka taangiyada diyaaro badanaa ka diideen ayuu caburin kartaa madaxa waxaan dhegaystay saxaafadii oo fadhisaa afayadkii hadlaaya maana saxaafadda oo caburin ka sheeganaya waxaan arkaa xildhibaanadii oo caburin ka sheeganaya waxa la isku caburinaayo saxa inta laga sheegay taangiga amisom la iskuma caburin karo kii Itoobiya la isku caburinayo marka saasaan leenahay waxaan leenahay oo xildhibaanada ku taageersannahay sharafta leh oo shirka ay keeneen madaxweyne farmaajo wax soomaalina oo ku yimid qalbile wuxuu dhiibi soomaalnimo ma ahayn maanta waa ka jigjiga lagu soo dhaweeyaa soo sharaf leh oo dadkiisa dhex jooga waa soo weeraray ilmihii askarta ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu laayay wax soomaalnimo maaha walaalaha Jabuuti ayuu ka doorbiday inuu gees geliyo oo la dagaalamo takooro soomaalnimo ma aragno wuxuu leeyahay Soomaaliland mucaawanadaha laga jaro soomaalnimo ma aragno wax soomaalinimo madaxweynaha waa ka weynay markii horena wuxuu noo sheegay inuu Soomaali u socdo laakiin anaga waxaa leenahay madaxweyne wax Soomaali ah waa ka weynay hadday tahay maamul goboleed hadday tahay Somaliland hadday tahay Jabuuti hadday tahay Ogaden iyo Soomaali galbeed meel aad Soomaali ku matasho waa leeyahay madaxweyne saas daraadeed waxaan taageersanahay haddana xisbiga wadajir oo shirka ay soo jeediyeen xildhibaanada ayaan taageersanahay oo aan dhinac taageernahay waxaan rabnaa reer muqdisho meeshan waa taxriir square horena oo waxaa jirtay waa taxriir square waa meesha muqdisho laga xoreynayo maaha keliya in dowladda iyo qoraygeeda iyo qacdeeda iyo qubkeeda iyo buxud soo bixinteeda laga xoreynayo maaha waxaa laga xoreynayaa daacish waxaan ugu baaqiyaa ganacsatada hogan ee dhuumanaysa ee cararaysa ee daacish baadda siinaysa oo shabaab baadda siinaysa oo beyle baadda siinaysa inay iska dhaafaan ay bannaanka u soo baxaan oo dadkooda taageeraan oo is-xoreeyaan oo dhiigii dadnimo isku yeelaan ma aha inay hoteelada ku dhuutaan ayagoo hantidii dadka iyo ganacsigii baamushirkii haysta waa inay is-xoreeyaan dad iska dhigaan xildhibaanada saasaan ugu baaqaynaa intooda hasanaysan dareertada rabta inay soo baxaan oo dadkooda xoreeyaan Itoobiya qoray lagu hayso waaye wiilal yaryar wiilal yaryar oo qabiilka oromada yidhaahda ama qowmiyadda oromada ka tirsan mudaaraadkooda waa 150 oo ciidan Itoobiya lagu raacday oo maanta Itoobiya dimuqraadiyad ku haysta waxaan rabnaa inaan dimuqraadiyad hayno waxaan rabnaa inaan xabadka u dhigno waxaan rabnaa inaan ku dirirno dirirtaas laakiin waa mid nabadgelyo waxaa la yidhaahdaa civil resistance yaa la yidhaahdaa waa muqaawama madaniya waxaan muqaawameynaynaa si nabadgelyo leh oo dimuqraadiyad leh waa u dhimanaynaa horena u soo samaynay dictatorna waa u diinay reer muqdisho haddaad tihiin waxaan rabnaa inaan isku raacno waa markii ugu dambaysay maamul la'aan muqdisho ay noqoto muqdisho waa inay heshaa canshuurteeda maamul ku matala ee madaxdeeda la xisaabtama ma yeeli karno inay 3 milyan matala la'aan noqoto waana dhibtay muqdisho waa inay tiraahdaa waa markii ugu dambaysay oo matala la'aan noqoto muqdisho waa markii ugu dambaysay hooyooyinka jidka ku dhalaan
jidka idinkaa fura kara idinkaa xora xornimaa ku dhalateen dad xoraha tihiin weligiina xoraha jirteen cidina gumaysan kartaana lama arko taasaan anaga ugu horraacayna waxaa aragtaan waxaad fiirsateen doorashooyinka waxaa socda puntland madaxweyne gaas musharaxiinta la tartamaya maalin fagaara istaagaan way dhaliilaan way ceebeeyaan xukunkay ka rabaan hal marna xabad kuma rido asoo xabad kuridaa ma aragteen madaxweyne siilaayo waxaa raba muuse biixi dadka la tartamaya ama xisbiyada mucaaradka fagaarayaashay tagaan waa dhaliilaan waa cambaarayaan asoo xabad kuridaa ma aragteen madaxweyne farmaajo waa inuu xishoodaa hadduu diyaas baro jiray hawsan la socdina nina u sheegayni xabada la isku ridaayo iyo qoray la soo qaadanayo waa ayaan daro in la yidhaha guddoomiyihii baarlamaanka ayaa gurigiisii hareeraysan yahay wax la yeeli karo ma aha walaal madaxweynaha wuxuu siiyey jawaariya hore u tanaasulay cabdiraxmaan xushukuuraa tanaasulay tanaasulkoo daciifnimo u qaatay taasna waa nacasnimo ninka tanaasulka nacasnimo u qaatay daciifnimo waa nacasnimo ninka u qaatay daciifnimo taas tanaasuli mayno xaqeennaa ku taagannahay guddoomiyaha baarlamaanka waxaa leenahay xaqaada ku taagnaaw sharciga ku soco dadkaana ku dhanac taagan ma aha kuwa lacag lagu soo bixiyey ma aha kuwa la soo dheelmiyey waa dad xor ah weligooday xor ahaayeen waana noqon doonaan reer muqdishaa la yidhaahdaa 30 kun oo etoobiyaan halkaan ka tireen maraykanka xoog ku qabsan rabaa ku qabsan waaye etoobiya xoog ku qabsanata ku qabsan wayse keliya laakiin dowladda maaha si wada jiraan rabnaa inaan argagixisadan iskaga celin waa iska celi kartaa nagama adko argagixiso waa iska celi karnaa waa inaan shabaab iyo daacish meel uga soo wada jeesanaa ma yeeli karno wiilal yaryaroo meelay ku yimaadeen aan la aqoonin inay dhahaan ganacsatada waa qaadaynaa lacagana siiyaan ayagana inay hagoogtaan oo guryaha isku xidhaan wax la yeeli kara maa waa nacasnimo waa dadnimo xumo waa diin xumo waa islaamnimo xumo intaba aad iyo aadaan ku mahadcelinayaa sida sharafta iyo karaamada leh ood ii soo dhowayseen oon meeshaan ugu soo noqday halgankeenna waa meeshaan ka bilaabaynay xorriyadoonka ah xorriyadirirka ah soomaali raadinteeda ah dadnimada iyo doolnimada raadinta ah waxaan ku faraxsanahay in daroon qalbi dhagaxa jigjiga lagu soo dhoweeyey oo farmaajo gacanta cadow u geliyey maanta anigii soo warana fagaarahan dhex taaganahay oo dadkaygii soo dhoweeyo oo hornahay xorriyaddaa dambaynaysa حقا بوليستونا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل يا الحيري كان زهوقا باطل واسوليا فرقا أنت مال متقايسو وعلى إرادة ويلي يرو سيدنا الشيخ اللي وافق الشيخ تلفزيونات اليوم وبسايدة بحق الإنترنت كالله وحمله مدحوينات ذلك هوري ماو لا حلب وعقبتو شاك هدو مني صوماليا وكويتها حلو احتفاع شاقي وحساح الأسارة وكويتها صوماليا لما نهومي كرو صوماليا لما قري كرو صوماليا لما نلوغي كرو صوماليا ست نسية لما بدقي كرو وحاربنا إن تاسبو ذا جوكسانو ورحلة درادات هي وقت بدرو جوكتا وصلوك عاملين يا خد بدأ إذا هذه هذا أمها سمتين حلوانا شرفتنا المسجد والسلام عليكم كمالو
Kan